السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامة السلام كايد كل سلام يا وواس كده قبلوها كبلو فارح ولا الكيس معو كي كيرا بشير بالله مطارعين حسن قرد صاحب كيس قرش ودرس كيس كنا ولا ورونا قرسيكو سا هاجا بكجا لقتي معنا الشغرية بناوين شنطة بقوري وواس كعلنك الصوماليات والله الصومالي أنا هوس آذن علنك يستانت الصوماليات والله يبلي بين هوس آذن سوالي هقوليست هالمر وحاد ليه ترى هذا سوالي هقوليست يقدرن نمكي معارضك على لنا فيسبوك وكحربي كليهين نكي تقبلوا هذا الجانج ما كنت البرنامج كليهين وهذا أساس أود ولا هاي فيسبوك السوشيال ميديا أود كلنا بحد مرة نوجو شيء ويسين وهرب بحاول يسوي تقبلوا هيفي ويد هلا برص بولت بروف يا هوب يا قرية يا بولت بروف بقى الله مقص هذه لقد حكتم بيننا السلاليوي بقرص هذا وإذا بديت قرينا يا حقيقة وحي جري يا الله يا شال إسسوتري أنا هنا نين وحارة هاي أي سفاري ريستورانتي يا سيدا حد الله يشيء قصرت عن قرحين دورو وقرص هاي أنا هلك كسو قد بين دورو إن شاء الله هدو إلهي رادو يا وحايت هاي إنا ومد الله وذا ورد هذا بوليس كأوسعدا ماشي المحكمة ده أوسعدا من يا بوليس وحاسوبر انترجرينا يا وحان إذن بري دورا 10 هوري سوماليدو انت بدا شرعي ما احترامته مكتب waxaa daawan doontaan oo hadda u socda police reportkii iyo dacwadii iyo lawyerkii u tagaya waxaan request gareysanayaa right now oo aan dalbanaya oo aan dawladda Minnesota iyo askartii timidan ka dalbanaya wixii barta ka dhacay iyo wixii ay dadka sheegteen safari si kale anigu ila hadashay maanta wixii ay tiriba rabaan ummadda u soo bandhigo inuu turjuwaan ka ahaa inay magaraysaa qolada shirqool ka dambeysahayeen inaanoo lacag siiyay ay yiraahdeen wana soo weerar meeshan oo dagaal kiciyay hadda waxaan u socdaa meesha booliska waxaan dalbanayaa askarigii labadii askari ee timaaday kaameradii halka ugu dhagereed bal hadalkayga dhageysta kaameradii halka ugu dhagereed baan dalbanayaa ummadana la wadaagi doona insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo safari ma fiyo waxa weeyaan ummadda idin baratay war markii halka marays arrintii marka horeeto waxay ahayd duqbilow hal la jijiido oo duqbilow hal lagu dhagdhagay ahayd laakiin arrintii way qaraaraatay arrintii way isbedeshay sir badan baa isfashilinayso arrimo badan oo anigu marka horeeto niyadayda aan ku jiro ya hadda banaanka soo baxay waan yaabana magawada ay adeertay baa lagu dirayaa ma Axmed Madow baa laga faa'iideysan rabaa ma garan karo laakiin waxay igu yiraahdeen cadeynteedii baan haynaa ninkii maqaaxida iska lahaa ee safari ee gaanga aniga igu dalbaday ee businesskiisii ku ciyaaray yay la kharaaraatay shacabka Soomaaliyeed oo aad baan idin jeclahay ma sha Allah aad iyo aad baa taageero fiican badii muujiseen waxa weeye inaan dad ka dhashay oo ehel Soomaaliyeed aan leeyahay ya wallahi dareemayna cidlo waxba iga qaadeen meel cidlo wallahi baan cidlo waxba iga qaadeen safari dhiikar baa ku wada dhacay baan maqlay way isku dhacdhaceen naagtii waa la furay ninkii waa businesskii waa qaraaray kuwii kale ownerkiis kala hawle marka halka markay maraysa waan u soo noqon doonaa yaa ninka balaakii la yiraahdo ee beesha Mareexaan u dhashay arrintii markay ku qaraaraatay buu soo wacayno duqbilow negotiation iyo wada hadal war saraftayda anigu jijiida gaangaaga baa jijiidada macaan wada hadalka anigu sharci ha lagu wada hadlo maqaaxidaada anaa kireystay $2,900 baan xalfad u dhigtay inaanan dib dambeeto qof Soomaaliyeed aanan loo qarinin oo meesha inta gaangaaga loo tago ee cidna ku jijiidan magaciini wuu dhintay sharaftiinni way baabaaday aad iyo aad bay u baabaaday anigu duqbilow fulay carruurteeda fulay waa aad iyo aad waan cararay intaan ordi karna waarad halka markay marayso wuxuu yiri ninkii meesha iska lahaa safari imraan neehow anigu wal shirqool baa la idagay arrintuna sida noqonayso ma u maleynaynin niman reer diini ah iyo niman kaleeto iyo naag lagu yiri meesha decoration hadda shaqaale tahay iyo howlo nooca lagu yiri yaa iwanjalay buu yiri waxaa la yiri naagta decoration ka sameeyso yaa lacag $900 beel aniga ka dhashay oo magaraysaa beesha reer warfaa la yiraahdo oo anigu siyaasad macnaha hadda qabiil bay noqotay aan khayrow isdiyaari wallahi been ma aan khayrow isdiyaari magaraysaa diyaad reer warfaa cadaawadoodii banaanka ay keensadeen laakiin ma cadeyn karo waa baaritaankeeda socdo laakiin sidii aniga la igu yiri baan
إذن لو ذاقيا أو مقرر معلومات كذا إذن لو ذاقيا باش الريور فا أحمد مدوبة وكذا الشيء يا وحال يري السياسيين تو قبضنا عن صور كذا صادق إلى ذيرتي وقدوم يكو حديك برلمان كذلك من الصوتوي أحمد مدوبة أذيروه كوميونتي مقالة من الصوت الشكتان بالير فكر كيجا يا فريدم اوف سبيتش كدقبله وآمن سيء يا يقبر سنة يا بالير أحمد مدوبة وكسر جيدا وحوار علينا يا نين عوليها أول يرى هذا وزيرك أمار يجيب لنا دقبله وقول علينا يا أو مقرر ساحة الفضية شرب ومشي لقوانيا دقبله وهلا وانجلو نكد البهانتي عريانك هاي اسطورة هاي سحريه هيد ميشن نكي مرة حارم مقاحدة اسكالها وحويري أنا مقعي دماء إذا شرف فقرنا يا ملك وحويري العكس قال بقول $1 يا قبضة قدوميها بارلمانك كان تايبو يري سقالك بقول وحا اي تاي فشر بانكوري عدين ميشنك وحوها إن مركي هوريتو أنه سقالك قبضة وين الشيسي أذيقو دقبلو لغو حيرو أو قبضة نكن لأذيك سريع عريانك او استورو مرخاتي لغو قفرو أنه ران ميشا ترسباسين يهولا نوع عكاسي نهيد بالين لكن دقبلو هو very very smart هورينا وانا دي كوشاقي موقتي أنا عاو ما أنت واحد دعوينيو هذا مقاحين قطنا أنا رنتو وشاقي يني حرقان حرد الله قد عاي تايوان أنا ودقبلو وشاقي ويدعي كرتا نكاسين وقبضة إنا ديرتا يقدر ويدعي كرتا ويدعي كرتا إنو مقرر سايا جنبال وطوريو أو ريرهاس مادام حرش يا أحمد مدوبة إسكجري ولا يهي دقبلو ودادا كليح ويدعي كرتا لكن أياقا اللي قربا إناي عديان إناي أني من شمين ريورفا أياقا اللي قربا إناي عديان سقالك بقولي جايا وإناي كسو عديان نكا مريحان بلاكين اللي يرادي السفاري صوبتي أسيين إيا صوبتي وكوكينا وإناي إذي كسو عدي ساوي لكن أنا مروا البيتانين الله صوي الربار هاي هادنا نرش إذا يا مقرر ساي شرعي أمريكا كان هذا والسعودة نرش إذا بدبات سريع شال ويحاول كدم بينا وأنا سهبينا يا قف كيس ودوادو إنه نرش إذا كوسو دقدقو هذا وحاول يمروا البيتان دقيقة يا بقرة هذه هدي مصلحة إيه وناقل هذين هالصاع عطيان سببتي سجالك بقول $1 أنتي وأروريان أنا عريان والربيان وسوق التورو وأنا حراء والربي هالصاع عطيان نما كريت طلقي سيدي أنا اللي يجري سيدي أنا اللي يجري يعني أنا ويدي شيء يا وحبان تقبلوا ما يقال أنا social media activist وحلا يقول صويرري سفاري نما كمن ريحان يعني نما كريورفا إنك عريان وأذيك سنين ومبادئ قضية آمن سنة هيوي هذا قبيل نقطي يا رير النقطين الدقبلة وأن رير عبد الله هذا خير عبد الله ويان ريور فاي وهذه دقيش وأن هذا خيره أو القرن يسار رير عمر ولي عمر داني بانهانيو هذا النقطين السياسيين تينا يا مقرر ساي العقية نقالة الرشتين أنا رير كان كذا شيء إذا لا فريسان دورة إذا لا نحساب تبي دوره هدو إلهي راد إن شاء الله هدو إلهي راد قوادنا سنادرتي حسسوا عديس وحا إسسوا عديس قبضنا إن أذيرتي مرة بينان مقارنة ساية وحا أيسن أيضو سمينين إن مدح اللي يقول لكن نكا ملكي لها بلاكي اللي يرهدو سفاري إسكاله يارنتا سيانيقا إلو ذاك تقبلوا أنك وانكورا اللي قلينا حلفت باكور دقانا ور حلفت سانو نلاش شيدانا سفاري يا مالك كنت هلانا نلاش شيدا يا عمر جاية تكلمن يا أنا والله وسو دوانين نلاش شيدا يا عمر جاية يا سفاري يا وحلا ما ندوان الصومالين ودوان مش وحور تقبلوا هدالك تاجنتاي أير شرقال كان وحي كدم بيردن وين دوجا تاويري there's no way أنا جاي مقاحدة يا مقاعي كلي ماشكم بابا يري مقرشة already دايجان business كودي وادعي start بيوجي وحده وصوّد قلي مال والبيت review لقو قرنا أنا وحيد كوري قلا حتى أنا كوشي قرن جوادن حل ما نداي نهر تمرك هذا رأي ذير معه تأد ما كوتش على جوارنا ذير تبتاي مسؤول باتاي مسؤول صوماليات باتاي allegation كان أي سفاري إن عاية فرت كوسو في ذي سوقلي because of assassination أنا يلا يوتر قلي الجانج اللي يهديك سني وحالي يري ما دام دقبلوا أحمد مذوبات كسر جديد ما دام أحمد مذوبات معارض ريور فابا لعقت سوري بلكن حير قبضنا صار سجالك بقول كنتوين داس تقبضنا برلمان كقدرته ما بيه ولا أساسا إنه سجى وما عاجد له كبه دلا دعكته لكن أنا مروا البيتو حاويا قفك لقى خلدنا بارها قفك شرقال كلود جاي بارها قفك حلفت برتها كسر ما يشتبه وأنا خلدني كلام ما أنا كهريو
mana ka hari doono hadda meeshan u socdo een hadda sii galayo waan idin update gareynaya aan right now u socdo waxaa weeye waxaan u socdaa lawyerkaygii baan la kulmaya waxaan kaloo u socdaa meesha booliskan u socdaa reportkii baan soo printer gareynaya safaari wixii ay ku hadashay iyo hawsha dhan baa soo dhigay yadiyad haddaan lawyer tahay oo rabtid kiiskayga inaad akhrisid aragtida rabtid case numberku waa 1938270 waa dalban kartaa anaa ku siiyo haddaad witness tahay iyo haddaad habeenkaa joogtay daasda duqbilow case numberka uu ku suud gareynayo shirqoolkii gaanga ahaa ee qabyaaladaysnaa ee la rabay duqbilow lagu soo weerarayay aad iyo aad asagoo oo lagala dagaalamaya dowladda Soomaaliya ee uu taageero asagoo mabaadiida iyo qadiyadu aaminsan yahay lagu borsanayo sharcigan idin baraya ballan baan ku qaaday intii khaldantay ee maalin dhawaato duqbilow ku khaldantay inaan America United States of America inaan idin baraa waxa ay tahay waa inaad barataan isdiyaari iyo tol iyo daarood iyo reer hebel baan nahay adeer gaalka ehelkayga noqoraya gaalka magaraysaay hanabiinka yaa wallaahi والله إيه الكيك النقريو وشرعي قاسا لو وضع حساب تمية شرعي قاسا لو وضع كلبحيا وحاوي وح عدالة الدقبلة وإيقويسو ويركي لوسو قادة عدالة وحي إيقويسو الدقبلة وقادنا يام إدا يلوكت الله صاقا سنة أدر إسكان هذه سوشال ميديا الدقبلة وعيد كقعد دير مرة سوشال ميديا الدقبلة عيد كقعد دير مرة والله وبالله تالله عيد كقعد دير إنا جرتوا أمرين يا this time ليكي قوانا إن عذرتي وحالغا يابا ريور فاونيادان إذين نسيا وحالغا يابا ما دام نكن قلي وأوغي هاي نكن يركن راسياد وقلي وأوغي هاي إنو جنبال تورا يدعي كرتو لكن جنبال كاسو وإناد إذيكو عضيساوي أساسناشي حتى وحيري قاران كريور فابا سكاروريي نكا عرياكرا أياغا أذيك سنايي وصوبته ودقبله مالو البيت نكا دلبانته اed ka carartid ee mar walba aad ka carartid uu ku cayo waa caruur weey waa qof waan u duceeyaa waan u duceen doonaa miisha kwari wala damacsanaana asaga iyo naagihi waxa kale la sheegay naag dhakaleesha ka sawiso oo arintan darteed ninkeedii isku dhaceen oo lagu yiri ninkeedii waa furay dambigay gashay hawlay gashay hawlo nacaas hadda la ii soo sheegayo oo dhiikar ku dhacay waxay islahayd hiilagal oo hiili bal hadalkayga adus hiilagal oo hiili oo magaraysaay muwaadinka Soomaaliyeed hal lagu dhagdhaga iyo qabyaalad bay la soo gashay war anigu businessman wax business oo anigu leeyahay oo iga distributor ma jira businesskaaga adigu Ameerika ku yaala kuwa kale hadda bartay kuwa businessada kale iskala sooreed hadda bartay kulay maalin dambe oo maqaaxi soo galo oo hore duqbilo wara horta kulay special trade bay siin doonaan insha Allah haduu ilaahay special trade ay wax xishmeeyaan ay ugu respect galayaan bay siinayaan kii khaldamay ee businesskiisa u maleeyay inuu dadka ka awood badan adeer Mareykanka qofka customerka xuquuq buu leeyahay waana ka awood badan yahay lacag baa ku siiyay safaariyay $2,900 oo anigu aruuriyay أنا أطبله أن أروري أو نقول تلقى الدولة الصومالية أنا كنت هاجره أو 6 فبراير أن كوين الشيو أو على كيجي الدل كيجي السؤال لماذا الربعين كوين السيارة يا جان هذا كوش يعني قلت البط دقبله ولا قلت لك أنت عرور تهاتر لكن قف والبقى الصوماليات وحود دريمية قف والبقى الصوماليات وحود دريمية وحي اللي يقول لك هنا تعالى كالصوماليين وحي اللي يقول لك هنا قضية الصومالي وين waxa la igu dhaganaa inay tahay Soomaaliya oo weynaysiinay Soomaaliya oo ciilay anoo weynaysiinayo ayaad igu dhagdhagteenaadiyad laakiin maanta backlashka anigu ma idinkeedaysta kuwii igu dhagdhagayna ta booliiska hadda u socdo hadda sharcigaas ku kala baxaya ballan baa ku qaaday inay dhul bahantaan aniga ay bariyaan curiyaankooda ay bariyaan oo dhahaan inaadeerow kabla laxbaan nahay isku reer baanu nahay waa ka weey Ameerika qof gacan looma qaadaan macaan waa ka wada xoog badnaa ku digood waxaan doonaa sameey karay laakiin wanjalka iyaga wadeen ayaga inuu la galay dhaq la dhahay wanjalka aniga ay reewarfa iyo safari ay degtay sida la igu yiri way reewarfa uga sameeyay baatid laakiin iskala yar gareeya is cadeeya is soo cadeeyo gabadhiinana Soomaalinimaan ku dooranay baarlamaanka Soomaaliya lagu doortay soo cadeeya hal soo cadeeyo hooyana ana u campaign gareeyay maalintii la dooranayay Minnesota maalintii Minneapolis laga dooranayay in adeerkeed baan aha garab taagan oo u ololeeyay oo magaranay Soomaali independence la tagnaa bana waxaana ninka codka u raadinayay bana
waxaana ninka hodan meel walba tuu gelinayaa soo gabar Soomaaliyeed ku garab taagan laakiin maanta sida hadalkaygu soo gaaray anigu way idilaano siyaasadda Mareykan baan ku jirnaa gang baad Duqbilow ku dalbanaynaa adeer Soomaali baa kursigaaga reer warfaayow haddaad Minnesota awood ku leedahay oo Axmed Madoobe ku badbaadin kartid oo siyaasiyiinta localka ee Soomaalida soo cadeey adeer macaana soo cadeeya oo Duqbilow ha loo soo cadeeyo arrintaayada inay reer warfaayo Axmed Madoobe iyo gabadhu adeerka u yahay inay bari ka tahay hala soo cadeeyo waa qan hala soo cadeeyo waxa weey Duqbilow markaayada wallaahi waa qancaya aadiyad laakiin Duqbilow lagu dhigay waa fulay weey wuu carcar waa ka weey laan dheerayaal dhalayde adeer Duqbilow hoos ma aadayay ballan buu ku qaaday shirqoolada aad degteen oo dhan inay idinka hoos ku gashaan inay idinka hoosta ku gashaan oo idinku idila dhaadhacdo oo idinku aad ka shalaysaan oo tiraahdaan war ninka waaska ahaa ee Duqbilow maxaa noo geeyay war Duqbilow maxaan u taabanay war Duqbilow maxaa noo geeyay inaad tiraahdaan iyo wallaahi oo bilaahi tallah Duqbilow ballan ku qaaday ballan buu Duqbilow ku qaaday insha Allah hadii la yiraahdo reer faagartaas anigu waxa weeye iiso gabadha la iiso cadeeyo mar walbaan mar kasta waxaad leeyahay waxa laga yaabaa in jambal la igu tuurayo bilaadan baan ahay oo khaldami kara laakiin waxa laga yaabaa in jambal la ii tuurayo oo la rabo in gabadha la igu dhufto in adeertay oo magaceeda iyo sumcadeedii ay baabaado la rabaaban u maleynaya laakiin waxaan rabaa inay soo cadeeyaan inay dhahaan annagu maana bixin ninka milkiilaha wax ma beenaysan karaan sababtaan u beenaysan karin ee u gal kar ninka milkiilaha Safari iska leh afkiisu iga yiri businesskayga kaliya wallahi baanan character assassination lagu sameeyay Duqbilow businesskayga kaliya wallahi baanan hoosaadeen buu yiri meeshay ka bilaabatay iyo meeshay ku dhamaatay waa inaan isku si Duqbilow isku cadaalad noo marisaaba igu yiri afkiisu iga yiri kulay anigu galay waana la isheerab gareeyay businesskaygana waa lagu ciyaaray waxaana ka fiirsanan baa galay calaa caliya bariya hadda lagu jiraa waxaana ka fiirsanin yaan anigu galay ma hayne dhacday waa ku yiri warqadaad qortana waata waxaad ku hadashay hadda soo britir gareynaya wixii aad ku hadashay ee aanoo meesha ka kareystay aad ugu tala gashay ee aad tiri Duqbilow waxa weeye waa soo weerar iyo transparency ma siinayad ku tiri hadda yeeshan kula qaraaraan haddana waxaan dirayaa shacabka Soomaaliyeed u dirayaa Facebook Google waxaan arkay way hacker gareeyeen laakiin magaca Safari si Soomaaliya aan dareensiino business leh oo mar dambe muwaadin Soomaaliyeed ugu khaldamin meel alaala meesha aad Safari ku aragtaan ku xayisiinayaan Mareykanka iyo waddanka joogna waa la akhriyaan meelo badan bay ku leeyihiin downtown-ka ku leeyihiin meelay ku leeyihiin ka furteen gaalada iska gadaa Safari gaalada iska gadaa waxay sameeysaa cuntada Soomaalida iyo ma garanaysaa ee gaalada u xayisiisaa inay brand magac ay leedahay magaceeda waa ayada dishay magaceeda waa inuu dalka galaawiyo magaceeda ayada dishay oo muwaadin Soomaaliyeed oo dalka Soomaaliya u dabaaldegayo oo dalkiisa hadda qabyaalada wax taraysa xataa ninka Mareykan baa lagu yiri magarad oo dalka Soomaaliya u dabaaldegayo yay Safari assassination u sameysay gang bay ku dalbadeen muwaadinka Soomaaliyeed awoodiisa waa in la tusaa ayaga awoodooda waxay noqotay inay Duqbilow ku dhagdhagaan waa inay loos gareeyaan million dollar waa inay loos gareeyaan million dollar waa inay loos gareeyaan xalfadaha Soomaalida aad qabsanaysaan walla iyo bille hadii xarash lagu hayo ismoogid bile aadan baa tahay ee xarash lagu hayaa mee qabyaalad jirto gang ba meesha u joogo assassination bay kugu sameeyaan jigjiga mool kareyso meeshan kale ee nimankan alrowda kareysta meelaha ay Soomaaliland leedahay ka dilimeyn ayagana uma maleen ma inay dhaqan xumada sameyn doonaan kireysta meelaha Soomaalidu ay leedahay ee lagu ixtiraamayo lacagtaada lagu ixtiraamayo ee lacagtaada lagu sharfayo kireysta meesha kireysta ha kireysanina Safari oo ogtihiin ayaguna ogyihiin nin Soomaalida magac ku dhaxle alla wuxuu jaahilsana war 900 dollar ban aniga ku siiyay adigu waxa sidaysi mishanka the point la rabay fiiri the whole point ay rabay waxa weeye in nin curiyaane aniga lagu dhufto uu istuuro oo ay arrinta ku ekaato war nin curiyaan baa la dagaal war nin curiyaan lama dagaalami karaan aniga qof ilaahay 66 uusan u dhameystirin oo aniga u duceynayo oo leeyahay war mar walba tow guulayso inaad guulayso aan leeyahay oo ka cararayo oo ka ordayo taabanaynin
oo haddaa saa u taabatida istuurayo leeda wuu adiga xabsi lagu dirayo adeer intaa ka carari kara waa ka carar laakiin miishanka ay wateen iyo kaartada la wada waxay ninka intuu istuuro aniga la xiro lagu marxaati furo ninka balaaki iska leh iyo nimanka reer fayl la sheegay iyo kii igu dhagdhagay inay u marxaati furaan oo la yiraahdo booliiska lagu yiraahdo wuu dilay oo la wada ooyo oo sanbad noqoto caaw aniga carruurteeda xabsi kaga jiro bal hadalkayga aad u dhageysto waxaan tusi doonaa inaysan sharciga garanaynin in loo turjumaanayo dadka qaar fiiri badownimada ka jirto America ee Soomaalida khalad ka fahmeen ee magaranaysaa aad iyo aad khalad ka fahmeen bal la yaabare war meeshan 9 number oo social security ba ka shaqeeyo 9 numbers oo social security ba ka shaqeeyo social security kaaga haddii aad gubtid oo ku ciyaartid baabuurka aad wadatidna wadan maysid mana shaqaysan karta America homeless ba noqonaysa ama alcoholic meelaha taagan ba noqonaysa waa run kuwa waa isku kaamiidaaminayaan marka sida duqbulo oo kala tahay nin sharaf leh oo dalkiisa jecel calankiisa jecel aatay kuwa isku ka qarxinayo lacag baa la iska aruurinaya siyaasad darteed bay dad baa u dhintay siyaasadda Soomaaliya bam loo qarxiyo loo dilay aniga way ugu dhagdhageen baayagiiba hadda ay baashi backlash kasta bal hadalkeedu dhageyso dadka aniga ay soo weeraray yaa waxaan la yaabanahay inaad ula qoslayaa nin dhan oo dad soo weeraray ya naagad dad soo weerar oo loo turjumaanayo oo ayagii dadka soo weeraray ballan baa ku qaaday inaad fadeexowdaan oo idinkoo Ingiriiska la turjumayo oo askariga loo turjumaanayo oo victim sheeganaya adiga soo weeraray victim sheeganaya soo hadda laba laha duqbilow baa la weeraray duqbilow baa lagu dhagdhagay duqbilow ay bursadeen soo ma dhahayaan waxaan idin tusi doonaa ayagoo ooyinayo oo kaameradii booliiska duubtay oo ooyayo oo calaacalayo aniga beeriga sheegayo leh askarigu ku yiri waa kan ninkan cadeyntiisa waa dawada oo isku marxaati fureen ninka Safari iyo naagta kale isku marxaati fureen oo leeyihiin duqbilow baa soo weeraray anoo customer-koodii ah hadda markay kululaatay shacabka Soomaaliyeed ay ka jawaabeen ee meel walba wax lagu qoray ku qora meel kasto Safari ku aragtaan inta uu igu hiri wallahi baan $1 lacag idin ka rabin wallahi baan shilin lacag $1 idin ka rabin meel walba Safari ay ku leedahay oo magaceeda ka gadatay ee gaaladan iska gadaysay wixii dhacay been kama sheegayso wixii dhacay baad ku qoraysaa wixii barta ka dhacay ee gaanka duqbilow ku soo weerareen asoo dawladdiisa u dabaaldagaya baad ku qoraysaa waa la wada daawan waa la wada akhrin cid u imaanayso iyo shakhsi u imaanaya male shakhsi u imaanaya iyo cid u imaanayso oo meeshiisa cunto ka curi ama kiraysanaysa ma jirto this is America darmaane waad baran doontaa sida customer-kaaga dad business soo lahaatid way inaan aragna way ayadoo xiran oo la xiray waa inaan aragnaa way ma garanaysaa ayadoo la xiray oo albaabada la isugu dhuftay oo ghost town awle oo laga wada cararo oo la leeyahay duqbilow wuu guuleystay la leeyahay inaan arkaan rabaa business woman and business man ka kale ta ee businesskiisa siyaasad soo dhaxgeliyo inay tan oo kale ku dhacdaan rabnaa wal hadalkaygu dhageysta reer Minnesota community-ga degan wixii siyaasade guryaha looga hadlay laakiin wixii business-kaaga duqbilow iyo madaxweynaha Soomaaliya iyo mucaaradka Soomaaliya waa customer-kaaga weeye baro qabiil business-ku ma wadi kartid waa customer-kaaga wax ka gadanayo lacag ku keenaya weeye siyaasad markaa soo gelistan oo kala kugu dhacayso halka markay marayso gabadha in adeerta ku noqonaya anigu nin dib loo geystay bana nin ay Safari gang ku soo weerartay bana in adeer ninka Safari iskale ee Blacky la yiraahdo ee beesha Maraxaan u dhashay hadaladiisa waan hayaa asaga wuxuu igu yiri duqbilow businesskayga kaliya dhulka ma aadayo mission kali dadkii ka dambeeyay ee soo maleegay soo qorsheeyay ee arinta nagu kharaaraatay duqbilow you have a right to know those people nawat niyadayda kumaada jirin qalbigaygana kumaada jirin magaranaysaa wuxuu igu yiri gabadha community-ga ee magaranaysaa gudoomiyaha baarlamaanka loo doortay wuxuu yiri niyahu ma garan kar xaaladda jirto main magaranaysaa mastermind-ka arintan ka dambeysay waa gabadhaas u yiri gabadha waa gabadha adeertan ku yiri oo maleynay howlaha Soomaaliya ku jirto wuxuu yiri waxay mas'uul ka ahayd 7 oday oo beesha reer warfaa u dhashay oo Safari isla haysiyo oo naagta kale ee decoration ka sameeyay lagu yiri yaa iswat
qorshaana waxay u dhahay duqbilow siduu u dhacay meena sida arrinta u dhacday mee si ka dawan buu ahaa miishooka waxaan u maleynaynaa si yaro easy inuu ku dhici doono booliska imaan doonaan tartiib adiga lagu xiri doonaan u maleynayn laakiin duqbilow ma dhicin buu dhahay arrinteeda ay leedahayd niyo annagu dambi baan geysanay xalfad baan kuu dhigayaa hool kalaa kuu kireenayaa war wuxuu jaahilsana xalfadaad ii dhigaysid taydii maxaad u day weyse tii anigaan dhigtay ee $2,900 aan ku siiyey maxay u dhici weyse taas markaad anigu xalfad sameyn xira ii dhigayso adeer xalfadna ma rabo sameyn xirna ma rabo ninaana aarsanna uurka hooyadiibi ku jiraa baa layidhi shilin hadday daqsi korkayga uu ka biibo daqsi hadda meesha waxaan taaganahay weeyaan daqsi korkayga hadduu ka biibo inta qofeen meeshin gareeyey yaan booliska hadda dhigaya if something happen for the future if something happen to me xataa hadday dhacdo inuu duqbilow hergab u dhinto hergab naftooga baxday dhacdo mas-uuliyaddeeda hergabkaasi iyo dhimashadaa waxaa qaadanaya inta qofeen magacyadooda barta ka sheeg waa ninka safaari iska leh naagta decorationka samayso iyo gruubka reer warfaaye hadda la ii sheegay ee sawirradooda ku daba jiro ee cadoontooda ku daba jiro waa hargab hadduu duqbilow dhinto way hargab hadduu ameel ku dhinto war riboodkan caawa maanta sameynaya shaqadeedaana gelaya insha allah hadduu ilaahay wixii dhacoo dhanna caddeynteeda way duuban tahay ninka igu dheganaa ee jiiday waa shaqaale safaari u shaqeeyey weeye ma garanaysa waa askari la amro weeye wax personally oo ninka aniga isaga inaga dhaxayn kara male waa shaqaale la amro oo amar la siiyey inuu dad dilo dad uu ma garanaysaa jiijiido amar lagu siiyey oo shaqaale weeye aad waxaa samaynaysaan meel walbo yellow page-ka aababka cuntada laga dhaalo garaysa sida group haabka google-ka meelaha ay ku leeyihiin oo dhan way tirtirayaan adigu waqtigiina qaata inta duqbilow taageersanow waqtigiina qaata facebookoodana hadda page bay ku leeyihiin oy magacooda ku promoter garayaan reviewgooda aadaysaa beenna ha ka sheegin wax kalena ha ku dirir inay duqbilow weerareen customerkoodana uu ahaa lacagna uu siiyey ayna ku dhegdhageen oy gaan ku dalbadeen oo meel dadka lagu dilo ay tahay kaliun baad igu qoraysaa intaa kaliun baa igu qoraysaa awoona inay fiilgareeyaan wixii ay sameeyeen noloshooda ragreed ay ka ragreed gareeyaan oo ay ka shallaayaan oy dhahaan muwaadinkaas Soomaaliyeed ee duqbilow la yiraahdo maxaa inoo geeyay duqbilow maxaa duqbilow inoo geeyay video waa soo dhigay safaari sir badan oo soo gudbin doonana way jirtaa diyaad niman waxaa lahaan jiray islaam raaxaane oo reediiniyo yar abaadir dhahaan yar kala warsangala asagana ma sha Allah yaa lahaan jiray maqaaxida waa nimankan 2010 waxa yishiyo ninka balaakiin la dhaho hadda ma garanaysaa qaladkan sameeyay weerarka igu soo qaaday safaari hadda la wareegay waa isku dhacdhaceen oo wasdagaleen meeshu xaraan bay ku dhisneed ma garanaysaa xaraan bay ku dhisneed hadda tan kale naagta decorationka samaysana waxa lagu yiri ninkeedii waa furay hadda arrintan darteed iyo ma garanaysaa howlo gogol dhaaf iyo waxyaabo la ii sheegayo ayaduna insha Allah musalsalkeeda aan gali doono way soogtahay meesha ay ka hiilinaysay waxay la socotaa waxa ay sameeynayay iyo duqbilow ku dhegdhegitaankii iyo xaliimo goobaadaad ka ordaysay maanta adiga safaari ma destroy gareysay safaari maanta baaba ma tahay safaari ma soo weerartay muwaadin Soomaaliyeed maanta google-kaagii iyo meelaha wax ku xayisiin jirteen maanta bad review mani lagu qorayaa maanta karadadkiini 3 something ma aadaysan ilaa aad albaabada isagu dhufataan ay xirantana duqbilow wallahi billahi buusan waligii aamusi maayo waligii iyo allihii wallahi buusan aamusin guul baan mar walba ta jooga waana guulaysan doonaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo waxaa ii soo hartay nimanka reer warfaa anigu ninaada khayr baray anigu ima handadi kartaan miisha ka wadateenna wallaahi baanan lisaga hareynin oo wallaahi oo billaahi oo tallaahi baanan iisi ku dhammaanayn hadda waxa soo socday isirteeda la ii soo wado horta koow gabadhin adeertay inay iscadaysaan raba anigu wallaahi baanan ka aamusayno hodanay balaakiin wuxuu igu yiri iyo waxa ii soo gudbiyey wallaahi baanan ka aamusayn ilaa iyo waxaan tagayaa heer federaal baan ballan ku qaaday ina assassination kaniga la ii dagay aana ka harin inaanan doorasho dambeeta haddaadan hadalka uu ninkaa yiri aadan soo caddeynnood inaa innocent tahay waa ku garab taagana maalintaas soo caddaysid ee aad tiraahdid anigu warna kama hayo
أحمد مدوبنا ومهيريو قبر صوماليات بانهاي إلا كتراد والله بونا دقبلو آمسين وحي قد دعسران دونو إن يدي قلبي كجر دونتو أحمد مدوبة معارضة عن معارضة عن أحمد مدوبة أنا معارضة إن كسر جدي إلى قبل داس ريور فاتاي أحمد مدوبة الريور فاي قاران كدتك أروريي إنك عريان كأوشقيو يعني الربين سكوك يقرحيو إلى الريور فايهين مرنبا دعي ميسو إنا تيشن كيغا اوهلو نكا عرياك مرنبا دقبلو دعي ميسو اسكو ليفل نمانهن إلهينا النمسمن وقف عريانة لحديث اللحاد إذا إلهي أقول لما يشتري إن وضع دافي أو كقاضو أو كعرب موجي والله بأنا دقبلو مرنبا تشالنج نكا سجى أنا المشي إيمانين behind the scenes وان تشالنج قريرينا على كاميرا كيمرس إن شاء الله لبي لبعتك فبراير waxaa imaanaya madaxweynaha mustaqbalka Jubbaland baa imaanay inta reer fa ka dhimanaysa soo tama wiilka curiyahan garab taaganahay in taageeraya Soomaa waxaad ka dhimanaysaan ee anigu gaanga igu dalbanaysaan waxaad aniga ii daba ordaysaan idinka isbahdilay gabadhiinana hadda Soomaaliyeed dhan bay daawanayso soo haday soo cadeen weyso magaca iyo kursigaasi reer fa ma geynin kursiga iyo magaca reer fa ma geynin Soomaali weyn baagiis haday maanta idinku aad reer fa ka dhigteen oo reer maalin dhaweeto ayaan loo ninkii soo weeraray aniga Ahmed baan ka hadlay dhuxulaystaa ka hadlay ayaan loo ninkii soo weeraray ka dhacay qolo hooyadiina kuma dhacdin oo aniga ii soo dhawaad isaga iyo hooyadii ee jareerteeda xataa kuma dhacdin oo aniga ii soo dhawaad maanta Soomaha inuu ninka safaari aha uu yiraahdo naagtaas oo reer fa iyo niman reer fa yaa lacag iska soo aruuriyay uguna talagalay duqbilow in la xiro aruurtiisa la dhaafiyo laakiin maqaaxideedii ba ku burburayso waxa weeye idinka isbursanay arinta hal loogaado ka soo cadeeyo duqbilow ka soo cadeeyo ninka balaakiin la yiraahdo safaris kale sababta lacagta u geeseen ka soo cadeeyo ka soo gabadha weeray soo istaagtaa ila ninka ay weerarto waa caalanka Soomaaliyeed iyo astaanta Soomaaliyeed barta ugu dhagantahay bal hadalkayga aad dhigis Minnesota dadka degan we are Somali community muwaadin Soomaaliyeed oo memberka community-gan yaa lagu xadgudbo siyaasad iyo assassination wadankayga Soomaaliya oo promoter gareeraya yaa laygu talgalo lay dhigay soo cadee ballan baa ku qaaday inaad xisbigaad ka soo jeedaan iyo meelaha ka soo jeedaan inuu duqbilow intuu cadeynta qaado uu geeyo uu dhaho this is what is going on this is what is going on inaanan kaligay dhaadhicin inayna safaari dhaadhacdo ina qof walbo siyaasi arintan faraha kula jirayna uu dhaadhaco oo fadeexadu banaanka timaado ballan baa ku qaaday insha Allah haduu Ilaahay rado this time right now waxaan hor taaganahay waa downtown Minneapolis ma garanaysa lawyer-kayga hadda la cadeynto dhan baan u gudbinayaa everybody oo magaciisa barta ka shaqeeya waan gudbinayaa if something duqbilow happen Minneapolis wala wada dagayadir macaani right now waxa uu lawyer-kayga igula soo taliyo ee inaan qori qaato isdifaaci karo oo hadda trainingkeeda u soo qaato oo isdifaaci karaan ballan uga qaaday in cid ay soo dhawaato self defense u gala duqbilow cid ay soo dhawaato inaan meesha idila raba ay wada taagantiin waxa uu lawyer-kayga soo yiraahdana inaan idila soo wadaago insha Allah oo dad badani baryar noqoto oo daarood noqoto oo kamalax noqoto oo loo isbariyo oo la yiraahdo walaalow oo sabeen xirna qaadan maayo duqbilow hadda idin sheegaya wax sabeen xir la yiraahdo iyo wax calaacal iyo oohin la yiraahdo duqbilow marnaba qaadan maayo insha Allah haduu Ilaahay rado guulaysta Soomaaliya ha guulaysato waa aad baan uga xumaa hal mar bay weerar nabad iyo nolol iyo dadkii taageeray bay weerar hal mar ku soo qaadeen cali saaxiibkay Facebook-ii bay ka xiran anigana gaang baa lagu soo dalbaday war nima ku jilicsana war mucaarado jileeca inta heerka idin gaarsiiyay muxuu yahay ma hadashaan wan hadlaynaaye dawladii baan taageeraynaaye ma dawladda ka hor imaataan oo mucaaradadiina sheegataan oo tiraadaan dawladda ha dhac maxaa anaga noo soo weeraraysa waxa iga daran reetolkay nimanka habar gidiraha ee cuqdad bay qabay ma garan laakiin anigu cuqdadeedii ma qaba habar gidiray wallahi wa billahi tallahi bana wax cuqdadeedii qabin laakiin siyaasiyiinta ina mako iyo ninka la yiraahdo maha salaad iyo ninka la yiraahdo fiqi ayar waa siyaasiyiin way badii bay gateen dadkii bay gateen umadii bay gateen laakiin qabiilka anigu waliga cuqdad ma qaba laakiin waxa aan dareemay in Facebook ark habar gidir oo dhan cuqdad ii qabtaan oo duqbilow waxa weeyaan aragti bay kala dhaxayso
Soomaali baan ahay war wiilkiinni baan ahay gunyay guntu dhash wiilkiinni baan ahay Soomaali baan ahay siyaasigan ka hadlayana waa siyaasi ummadda Soomaaliyeed u dhaxeeyo way xageed aniga igu soo wada yacdeen dubulo xagee war wadanka sharci Mareykan la yiraahdo ka shaqeey Mareykan sharci wax la yiraahdo ayaa ka shaqeeya isbaara kama shaqeeyo habro waxaan arkay isbaarada dhigan jiray oo gacmaha iyo faraha wada gooyihiin muu dagaalama ku dhash war Mareykan lama dagaalo haddaan dagaalamaya this time aan kula hadlayn downtown Minneapolis dhex taaganay iyo bilow dagaalamaya garaysa haddaan dagaalamaya badan iyo calaacal fara badan yaa hadda bilaabanaya iyo tolbaan waxaan ku tusi doonaa duqbilow lugahayga hoostooda intii la yimaado lay bariyo leeyahay duqbilow saan u maleynayna ma duqbilow sidaan u maleynayna ma waana ka wada lacag badan ku dugood والله بين ما كوضل لعق بدنا هاي نتراجلو شقيستان هاي لوير كاس أيها وحاول ياديات أنت وير هذا إلههم وير هذا ساعدي لا بقول دور بكوكو شقين يا منو سي عن دت كاس أساسينيشن كدلك إيوذي سي عن دلك أوذا قليو سي عن محكمة مقاحة نفتر كذا أسود جريو أو مقرنا ساي لعق ملايين دولار أنا وقاعد هذا سفر إذا كقاعد ويبلم ما كقاعد إن الملايين دولار إذا كقاعد أساس الناس كسبسين ضبلوا بلم بو إذا كقاعد هذه ورجوليستان إذا الله هاي شوالي أنا هقول الشتو ومدة الصوماليين أنا هقول الشتو وحكي لي أنا هذا ريور فاي قبر سريان أنا الدم أرضيان وحاول عليهم بالتاجرين وأذن كيبا مقرر ساين نفتر كيسيبا أردت إن أوجادين كذا شيء عيل كمان بحبه حقيقة الدكتور نين باش أوجادين كذا شو عيل كمان بحبه صوبته نيمان كأساسينيشن كإيش سمينايو وحاول إن كل أوجادين بالتاجرين مد أوجادين ما كسر جدا سقف كحر ما هو سياسة ديسية عقل ديسية فكر كيس صحور به نكا أمر لي هذا صاحبك he's my best friend أنا لجعل إن شاء الله وأنا جاري دورة ريور فايو بلمبا كوكا إلى كسمايو إنه أمان أنتم مدحوين النقطة إلى كسمايو لايف كسوقرا إن شاء الله أنا عيدا وطو ودربا إذا كلا دالي هدان إذن تسوى يا رود دغبروه إلى هاي النفس دا إنتا يقصن أمارو مدحوينك جبلان كسمايو يبو أنا جوجنو دغبلو أو تكنيكي عيدا وطو أو كسمايو نحتاجن هدان أركي ويسان أو عيل ودي من ويسان بلنبو دغبلو إذا كقاد واق مالي ما ير أغسط بحقي هاري وحي هاري ويرتاي أمار he is the next president of Jubilee لبي الله بعتنك فبراير ويمانيا سفاري دنبي اريا ده ودوان مين ميشا جانك ددك كوسو برسنس ودوان مين دبل تريغا بان كريسنا هوتيل غالا كريسناي سكوريتكودي امنيغودا ومغرسا لا بروفايد غرينيا شخصيغا اسكو دايانو امنيغا خلخل غليو waxaa xabsi baa loola dhacaya قال ويه لكن حكسن ماي لكن شخص يسكت ضيره سكورت كنا خلخل قليل حبس ما نولد عنا اسلا برتاس نون كحرنا سفاري لكن وحرجان وحاول مر يدق باليري مر يدق هذا خلدن مر لبعض يدق أنا دقن بالي سفاري دنبنا هدانو دوان يقف شرف لبه هدو دوان هكون دقنا دك شرفتها هجي جيتان وهجي جيتان مقرت تبدأ بنا سفاري إيريا لا هاي بنا دوانين نلص هذا دنبيتان ودوان قف دنبوه صوماليا والضمير لنا سفاري ودوان ما وقدام بنتي هذا عثمان ولا شيء بتاعي هاد بكوتش على هاي سياسي بتاعي allegation كان أنا قلت لنا عيق assassination كان كاسو قلي you need to come clean وأنا come clean نقطاوي ودقنين أنا وأن بيشا كده نتيجة قدنا الصيني والله الصومالي إسلا داد عيسى أمريكا يكبر لابنسا ميول بيكبر لابنس وح إسنع دونا لبض جلبين على خير كان كده الشيء ريور فاجأ كده لتين إذا كلاقات قادم ما يعني ريور فاجأ كده لتين يا إسنع دونا وإسنع دونا نول بنا ويل كيسة نول بيه قبل ديسا إنقون دون إن شاء الله before all those things happen نكام ريحان أرنتها وسوق بيه قوادنا وأنا كام كليك النقط وحيري وحامر خاطئ إيجا أو إني كدم بين جروب كجواد السيال كبقولي كنتي عبد ورسم كانوا ماشي شك إنجليزي وماشي عبد ورسم وحنكور هذا مؤوس تاجرين أمو هذا يعني قاعد يقول رئيسان مكور أما هذا الربطان أنا جنبلو طورشان أو كرسي سياسة ده ما دام أحمد مدوبية كراس عن دليل بالله تسول ويري عدا أنت هدار حتى وكدا وسيرنا فيديو سي كاميرا ده كوسو بندقة النام يقولون سي كاميرا ده يا كوسو بندقة النام يقولون عودا نكن وحا استعماله إمانو والبو برموتر قريريو ميشا كربا أنو إيزي وانو قدان إيزي هدان مركز سيرة سوق هذا لا وحا نودان ما يدعدان بيري وان تاقنا وانا جوغي ما انتنا وكسر لاينا يا بيري
haddii uu adigu wanjalay kolley anay hadalka iyo magaranaysaa sirtaasi ninka balaakiin la yiraahdo ee safaari iska leh yaa arrintaasi ii soo gudbiyay. You need to come clean. yana dhicin in adeerka lagu diro, yana dhicin in adeerka magaranaysaa suuqa uu ku gala this time ee magaranaysaa doorasho dambe iyo istaag dambe oo magaaladan inaad qabiilista tahay kugu shaabaday intay dhicin. You need to come clean right now. waa inaad come clean noqotaa, waa inaad tiraahdaa duqbilow waa muwaadin Soomaaliyeed, anigu kuma xadgudbin, lacagna ma bixin, public waana tibaadaa way. When does that feel it inuu balaakiin ninka la yiraahdo ee safaari iska leh inuu ku wanjalayo markaasaan ogaanaya jambalka uu wato iyo hawsha ay wataan iyo sida u leexinayaan markaasaan rabaa inaan aniga dareemo. laakiin inta ka horeyso inta oday yar oo reer Warfay soo wacayo aniga iyo handada reer Warfay aniga maxaa iga qaadi kartaa? reer Warfay aniga maxaad iga qaadi kartaan? ila kaagana waa dhaaranayay arintana la geesha kale dilka duqbilow way ka badbaadeen inaad idinka lacagta qaaraha ka soo aruurseen ba hadda sirteedii banaanka la soo saaray. ma Axmed Madoobe duqbilow ka soo horjeeda, Axmed Madoobe mucaaradaya, Axmed Madoobe magaranaysaa siyaasad ahaan dhaliila yaad anigu lacag u aruureysaan oo aniga curyaamiya dad igu soo diraysan oo istuuran aniga la xiro heerkaas samaraysa. idinka kiina sharafta leh iyo kiina magaca laha adeer macaan destroy noqonay. naara duqbilow waa muwaadin Soomaaliyeed, calankiisa jecel, Soomaalinimadana ay ku weyntaa. hadday qabiil noqotana adeer reer Cabdulla waa snaqana ceebta reer Cabdulla taa reer Warfay aniguna aad khair baanahay ahludiin adeer macaane ilaahay ma garanaysaa burhaanta saa ugu soo dajinayo khalad iyo saxba waxa dhacaba ma garanaysaa ilaahay intuu ka badbaadiyo shirqoolka adiga aad galayso. هودن عثمان قاب وراشي وكجعلهاي come clean before هذا الله كلا أنا جا يجسوا تكتجين وأنا وحراقي وسنة ملفق فوق وسنجارين وح أنديب يودنا وح أقوى الله يودنا وحاول وحديث الدليل ويان بيرالم ملفق ومرخاتي سجستا ما قصر يعني سيد اللي يجري يسوي وحوس عدم بنهالك بابلغ الصوبني come clean بنان كاي مو come clean نقاني والله عجنا ما ديبن duqbilowna assassinationkiisana qayb kameen yaa kaara hadii kale waqti waxa laga qaban karin oo wallahi oo billaah in adeertinimadii iyo tolnimadii iyo helnimadii intay baabaaday dhooqoon noqotay la isku wada xaaray la isbursanayo ee meesha tilaaday neesti marayso oo wax xun tagto oo meesha xumaato siyaasadda ku jirta. You need to protect your name. You need to come clean right now. waana banaanka u soo baxaa tiraada warna kama haynin aniguna duqbilow inta aan way qancinaysaa. intaas ani markaan maqlo adoo baarlamaanka awood aniga la ii sheegtay la dhahay duqbilow waa baarlamaanka Minnesota ku jirna sharciga anaa hadda idin baraya, sharciga anaa hadda idin tusay, sharciga hadda anigu dadka baraya oo dadka tusay insha Allah hadduu ilaahay war halka markay marayso insha Allah hadduu ilaahay Soomaaliya ha guulaysato, ummadda Soomaaliyeedna ha guulaysato, Soomaali weynna way jiraysaa. Facebook-gana waxa weeye lagu kala adkaan maayader macna afkanagan ka hadalna waana sii hadli doonaa, dawladdaanu taageeri doonaa, calanka Soomaaliyeed ba halka noo saaraan doono insha Allah hadduu ilaahay safaarina anaa ka guulaysto maanta anaa ka guulaysto. halka markay marayso waadi salaamiya anigu waxaad iigu hiilinaysaan gabadha yaa la taaban hadda, gabadha yaa waxba laga soo qorin intan garteeda dhamaarayso odayaal baan u xirsaaraya magaraysa odayaal baan u xirsaaraya dad tol baa leeyahay odayaashaas soo dhameeyaan intaan baan ku qancay aniga. laakiin maalinta isla weynin iyo kibir u yimaado social media anigu waan isticmaalaya shacabkeegana fasixi doonaa meel walbo ay ku qoran tahay iyo baalkeeda la gelay in magaraysa siyaasi qabiiliste oo Soomaalida isku diro nin activist of freedom of speech America ku nool inay dhaqaale u soo aruurisay oo lacag loo soo aruuriyay sida ay dhacday bay imaanayso intayna imaaneen on shacabkayga fasixin oo aanan dhihin ha lagu yaaco oo meel walba baar review siyaasadda la geli oo Soomaali way ka hor imaan. You need Hodan Cusmaan walaashay walaad u jeclahay. You need to come clean. safari allegation kay ku soo jeedisay waana banaanka istaagtay wallahi ana ku calool fiyoweyn markan Axmed Madoobe arkay adigana farta liigu ka soo fiiqay marnaba ku calool fiyoweyn marna isdii maay waana dareemaya because of waxa curyaanka soo diray ee lacagta soo siiyay ee rabeen inuu istuuro ee gaanga xabadda ku dhuftaan in waxan ay Axmed Madoobe seerabtay aadiyad war halka markay murayso waxa weeye afkaaga haddaada ku aarsanin afkaaga haddaada ku aarsan oo afkaaga ku magaranaysaa ku aargoosan waa Allah ka gooya la yiraahdo ma garata
nimankii maqaaxida waa kuwaasi dhulkay galeen waa kuwaasi review meel buu qorar waa kuwa baryootobay kuwan kale qabiilkaana hadday isdhahayeen markii hore attentionka ha qaata ninka curyaanka attentionka ninka curyaanka qaadan maayo loo jawaabi maayo una jawaabi maayo insha Allah haddaan halkan waxaan kale war khayr Allah ku siiyo iska badbaadi sharciga Mareykanka iyo magaranaysaa boodboodtaanka soo boodaysay ee sidii gabdhaha candhuufta tufaysay waxaa way duween Facebook ku jiraan dawladda Mareykanka la xisaabtan adiga siyaasaddu adigu way ka weyntahay adigu shakhsi la isticmaalayo oo qabiilo iyo qolo business isticmaalayaan ayaa sirtaagan ana fashilay waana ku duubay waxa weeyaan dawladdu way aragtay hawshaana saasi ku dhamaatay insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo halka markaan kaga gudbo Soomaali weyn waxay leeyahay 22 February duubilow hal garab istaago wasiir Omar hal garab istaago hoolka aan qabanayno xalfada waa soo dhignay reer Minneapolis habeenkaasi double 3 hotelka lagu qabanaya waa soo bixinaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo kulani waa soo hubeen doona waxba naga qaadi maayaan hadduu Ilaahay yiraahdo askarna meesha waan keensanayna wixii aan habeen dhawaata arkay horta 10 bay tahay waa ka sii baaran dagaya insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo this time-na ayay gali doona weyna gali doona xaqiiq dhabe weeyana taas ومدحوينها جبلا ويه أحمد مدوب نك حلك كلا وريق دونا ويه نكاسا سودا ويننا هلا يسوي ماذا هلا صبحه هواي كاسية من يابلس يدقبلوا إلا قرب تاجي هاي دولة النبض اللي قرب تاجي هاي يقولوا سنة هواي كاسي تسنة إن شاء الله هدو إلهي هذا ويحديق لو كع عليها أنا قلت واحد الله يوري في ويريان حقيقة مركز شيء أنا قلت غير عبد الله هاي فكر كيجر حرب روان ومرة وان صاحب كي وأنا معرفنا وأنا هذه تاجرة وأنا هذا تاجرة وحاول همي السياسة ولا هنا وأنا كجرب تاجرة قبل لما قانو رأي ورفاي أحمد وأنا تقول برسالة هذا رأي عبد الله سو راعي السعوديان وين هذا رأي عبد الله سيد العوليان ورع ذا عليها والرجل هذا الشيء وأنا من وجادينه وأنا من أبو الصبي وأنا من طول كيجة وأنا كل حجرية وأنا تاجرة يا ذر معانا عيبت رأي عبد الله نافع اسكتها أد برايدين سلام يا قوليش تمشي اسكتها هذا جري يا سعيد كان جري اللويركم هذا لطرياش إذا كونسلر بيسيريان ماشان كتب بالله يا كيس نمبر كودي وسيريا هذيات هنمغلي كود دايو وترسباسن وبوليس ريبوت كي ويان أنا والريبوت جري إمبراس جاج كوسمي ضد كاريجا صور بوليس ريبوت كي وحدة بان برينتر جريرة يا شاء الله هدو إلهي هذا ساعات بعد أبيت كروس عندهم تان إلهي يومي $20,000 فيري لبعتن كل $1 إلهي يومي يقو قادت لوير كاش $20,000 هذا قاد وإلهي ساعدي وحن كل شقيريا and make sure the people دقبلوا كل جي إن أن مجرد ساي revenge كان كل سمي أي نلك جلان هذا الصوب ميدا من كرنا مجرو أي دارود هاني يقول ما كرنا مجرو أي غير هاني يقول ما كرنا مجرو أي كعاوية الله يرضى هذا كعاوية أي قرار السمية إن شاء الله هدو إلهي هذا والد السلام يقول استاذ الله هاي سوالي أنا حق ولا استاذ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.